xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ahna xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Aadan Isaaq Cali iyo agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya mudane Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska. xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan. dhanka kale fanaaniinta ayaa halka heeso ku soo bandhigay. fanaaniintaas ayaa waxaa ka mid ahaa Ustaad Axmed Naaji Sacad oo halka ku soo bandhigay heeso wadaniya. hortaada reeyaan waan soo dhaweynaya Soomaalimaad ku soo dhaweynaya magaca islaamiyaad ku soo dhaweynaya magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ku soo dhaweynaya dadka Soomaaliyeed lama sii joogaye qof walba taariikh ka tag oo nabadda iyo horumarka dalka Soomaaliya aanu ka wada qayb qaadano annaga dalka annaguna sugaya indhihi baan nahay aqoon-yahankii baan nahay dalka annaguna sugaya waxa xaqiiqo ah halkan waxa lagu tiriyaa ilaa 600 oo kun oo qofood bishii markaan bixino 1 pound imsaan oo soo aruuraysa siyaasadda dawladda wax baan u tiri karnaa annagana wax baan isku tiri karnaa waxaan soo dhawaada halkan jaaliyadii labeentii jaaliyadda ayaa joogta waana jaaliyad wada socotaan jaaliyad qaaliya aad iyo aad qaali oo runtii ku wanaagsan xurmaynta iyo soo dhaweynta madaxdooda marka kale waxaan u mahad celinayaa TV-ga qaranka sida qiimaha badan oo qaayaha badan oo caawa intaan oo dad oo isugu yeeray baaqina annagana aan dirnay looga soo jawaabay waxaan aad iyo aad aan rabnaa inaan macnaha aan hambalyeeyno dawladda federaalka ah talaabooyinka ay dalka iyo dadka ka wado dawladdeena federaalka ayaa caawinala joogta sharafti iyo wanaag ayaa nala jooga agaasimihii madaxtooyada iyo waxa nala joogay warfaafinta iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta caawa farxadeena lama soo koobi karo iyo waliba astaanta qaranka Axmed Naaji Sacad waxaan salaamayaa wasiirka iyaga iyo agaasimaha madaxtooyada waxaan ka mid ahay wasiirka hoostiisa imaana wasaaradda warfaafinta ayaan ka mid ahay 25 sano ka soo shaqeeyay idaacadda iyo telefishinka ugu dambeyntii ayaa waxaa halka qodbad ka jeediyay agaasimiye Cabdinuur Maxamed Axmed isla markaana ku soo dhaweeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane Aadan Isaaq Cali oo halka kula hadlay jaaliyadda UK waxaan rabaa inaan kala qayb qaato soo dhaweynta wasiirka oo aan wafdigiisa ka mid ahaa marka rabaadna waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo runtii xafladan quruxda badan ee caawa aad noo sameyseen aniga iyo wasiirka markii Garabay iyo Xanaan ay nala soo xiriireen waxaan u haysanay kulan xiran oo dad kooban ay yihiin laakiin de soo dhaweyn noocan runtii maanan filaynin marka markale waxaan leenahay waa mahadsantiin soo dhaweyntiina diban aad idinkaaga mahad celinaya waxaad inoo furteen indhaha waxaadna tusteen rajo shalay agaasimo Cabdinuur sheegay meeshii aad naga soo qaadeen maanta idinka halkan ina keenay tan xigta ee qadiyadaha ee maanta taagan oo walaalkay Cabdinuur uu ka dhawaajiyay ee qadiyada badda ee aad u ragaadisay ee dadkeenu kala geysay mowqifka dawladda uu cad yahay waxaan si cod dheer ku cadeynayaa mowqifka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ee ku tacalluqda arintaasi waa ay caddahay waa biyo kama dhibcaan inta ay nagu jirto ama neeftu ay naga baxayso marnaba lagama noqonayo shalay meesha soo gaarsiisana ka sii kaxaynana Xanaan Shidane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada London.